habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin ciidamada Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay dhowraan xeerarka dagaalka ee caalamiga ah marka ay hawlgalayaan balse ciidamadu ma helaan daryeelkii iyo tababarkii ay u baahnaayeen warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kalena waxaa ka mid ah waa masiibo weyn 35 qof ayaa ku dhintay xilli roob uu ka da'ayay markii ay burburtay buundo weyn oo gawaari ay saarnaayeen Talyaaniga boqolaal ayaa ku dhimatay weerar ay maalintii shanaad ku hayaan Taalibaanku magaalada Ghazni mid ka mid ah ganacsatada qurbaha ka tagay oo shaqaalaheeda ku dhiirigelisa in ay wax bartaan inta ay u shaqaynayaan kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa taliyaha ciidamada Soomaaliya Major General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gorod ayaa militariga u sheegay in ay u hoggaansamayaan xeerka caalamiga ah ee bini'aadanimada xilliyada ay fulinayaan hawlgallada waxa uu sheegay in askarigii u hoggaansami waaya arrintani ay noqonayso bay yiraahdeen in lala xisaabtamo oo la maxkamadayn doono isla mar ahaantaana waxa militariga Soomaaliya lagu qiyaasaa in ku dhawaad 20,000 oo askari ay yihiin balse su'aashu waxa ay tahay sidee weeye xaaladda ciidamada Soomaaliya marka la eego mushaarka la siiyo ee ay helaan waa 150 ilaa iyo 500 oo dollar waxayna ku xiran tahay cidda bixisa lacagtaasi haddaba wariyahayaga Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan ku eegaya tababarka iyo tayada ciidamada Soomaaliya waa ciidamo looga fadhiyo inay la wareegaan amniga Soomaaliya laakiin halkan maanta uma fadhiyaan taktikada dagaalka inay maqlaan balse waxa ay maqlayaan sida loo dhowro xuquuqda rayidka xilliyada dagaalka lagu jiro marka aad dagaalamaysid dadka aad dhowraysid iyo dadka aad la dagaalamaysid iyo kuwa aad u dagaalamaysid waa inay kala soocan yihiin haddaad kala garan weydo hadda cadow badan baad abuuranaysaa adiga cadow abuuranaysid guulna ma gaaraysid waayo waxaad ku gaftay qaynuun islaami aad ku gaftay mid muxuu ahaa madaniya oo caalamku ay dhigteenna waa u gafaysaa waxaanad maraysaa markaas inaad adigu muxuu ahaa aad meeshii aad wax fiican ka qaban lahayd ama lagu amaal marin lahaa inaad dembilo noqoto oo berri maxkamad lagu saaro nin walba ha iska akhriyo ciidamadan waxaa loo qaybiyey buug la sheegay inay ku qoran yihiin shuruucda dagaalka iyo sida loo difaaco rayidka iyo hantidooda wuxuuna taliyaha ciidamada uga digay in la maxkamadayn doono qofkii ku xadgudba xeerarkan ku qoran buuggan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ciidamada Soomaaliya iyo kuwa caawinaya horay ugu eedeeyay inay mararka qaar ku xadgudbaan xuquuqda dadka rayidka ah ama ay dhacdo in dad shacab ah ay ku dhintaan dagaallo iyo howlgallo ay qaadaan balse alaaba waa iska fogayaan dhammaan eedahaas hay-adaha caawiya askarta Soomaaliya waxa ay sheegayaan in ay hoggaan ahaan iyo tababar ahaanba aysan awoodin ciidamada Soomaaliya inay howlgal fuliyaan tababarada la soo siiyay oo dibadda ahaa iyo awalba iyagoo ka yimid u badi maleeshiyooyinkii maartay warlooradii haysan jiray maxaakiimta ka hor xamar ciidamada Soomaaliya waxay u baahan yihiin tababar joogto ah iyo la socod iyo saraakiil maartay oo aad iyo aad maartay danahooda ilaalinaya ciidanka oo mashaariicda sida raashinkooda caafimaadkooda wax kasta laga fikiro ciidanka markaas ciidan maartay uu dareemayo ciidamadu dareemayo ayadoo maartay oo aan laga fiirsan ayaa ciidan si degdeg ah loo sameeyay magac loo bixiyay laakiin wixii waxa ka soo baxay waxa maartay dhibaatooyin weyn oo caalamka iyo maartay Soomaalida ay leeyaan kaliya caqabadaha kuma koobna dhaqaalaha iyo tababarada balse hannaanka iyo meelaha ay amarka ka qaataan ayaa sidoo kale kala duwan waxaa tababaro siiyey dalal kala gedisan sida Mareykanka, Britain, Turkiga, AMISOM iyo kuwa ay tababartay dowladda Imaaraadka oo hadda ay maamulkoodu la wareegtay dowladda Soomaaliya arrimahan oo dhan waxa ay sababeen inay dib u dhacdo xilliga kala guurka ee AMISOM ay Soomaaliya ka baxayso iyo in ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegaan amniga dalka
35 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii ay burburtay buundo xilli ay roob xoogan uu ka da'ayay magaalada Genoa ee wadanka Talyaaniga. buundada ayaa ku dul dhacday waddo tareen oo ka hooseysay halkaasi iyadoo ay saaran yihiin gawaari waliba waxa ku hoos jira halkaasi burburka ay ku hoos jiraan. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya. cabsida kuwa daawanayay si cad ayaa loo maqlayaa. waxay goobjoog u ahaayeen burburka dhismaha buundada. booliska waxay xilliga burburka ka hadleen boorka halkaasi ka kacay. dhinac kastood ka eegto way iska caddahay inta ay la eg tahay qaybta maqan. dhulka hoose waxaa daadsan gawaari burbursan. goobjooge ayaa sheegay in gawaarida ay ka soo daateen waddada. dabdamiyaashu waxay sheegeen inay dhimasho jirto hawaduna ay xun tahay. waxaana socda howlo lagu soo bixinayo kuwa xanibmay. buundada oo 1.2 kiiloomitir dhirirkeedu yahay waxaa la dhisay 1960kii waxaana dib u habayn lagu sameeyey 2 sano ka hor. qaybta burburtay dhirirkeedu wuxuu la ekaa 50 mitir. inta badan waxay ku soo dhaceen jidka tareenada. waa jidka ugu weyn ee isku xidha Faransiiska iyo gobolka Riviera ee Talyaaniga. gawaari ayaa taxnaa markii ay buundada burburaysay. warbaahinta gudaha ayaa ka soo xigatay gurmadka degdega Talyaaniga oo leh in dhimashadu 10 tahay. wasiirka gaadiidka Talyaaniga ayaa sheegay in tani noqon karto musiibo weyn. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira qodobada caawa wararka. magaalada London nin ayaa lagu xiray looga shakiyay weerar argagixiso kadib markii uu baabuur ku dhuftay dad baaskiil watay kadibna derbiga ammaanka ee baarlamaanka hortiisa ah. 2 qof ayaa ku dhaawacmay. ciidamada booliiskuna waxa ay sheegeen in wax hub ah aan laga helin kaligiina uu ahaa. madaxweynaha Turkiga ayaa qaadacay qalabka elektrooniga ee Mareykanku uu sameeyo isaga oo si toos ah uga hadlayay telefishinada ugu waaweyn wadankaasi. Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan ku qaaday in Turkigu uu isku filaan doono oo uu soo saari doono wax aysan hadda haysan. waxay arrintaasi ku soo beegantay iyadoo ay taagan tahay dhibaatada lacagta liiraha iyo muranka u dhaxeeya iyaga iyo Washington. madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa ugu dambeyn bilaabay barnaamij lagu baabi'inayo dhammaan musqulaha godka korkiisa ka dhisan ee iskuulada dawladda. arrintan waxay ka dambeysay dhimashada 2 dhalinyaro ah oo god ku dhacay. in ka badan 4500 oo iskuul ayaa leh musqulaha laga dul dhiso godadka. magaalada Vienna ee wadanka Austria oo caan ku ah waxyaabo badan sida dadka musiga tuma, meelaha kafeega laga cabo iyo goobaha dulshaha laga cuno ayaa waxa loo magacaabay inay tahay magaalada ugu wanaagsan caalamka. waxa ay ka badisay magaalada sanadkii hore number 1 gashay ee Melbourne. cilmi baaris la sameeyay ayaa London, Paris iyo New York ay meel dambe ka galeen. waxa qaybo badan oo kamid ah wadanka Afghanistan ka soo cusboonaaday dagaalo u dhaxeeya kooxaha xagjiriinta ah iyo ciidamada dawladda. waxaana dhanka waqooyi ee gobolka Faryab ee kooxda Taliban ay qabsadeen xero ciidanka dawladdu ay deganayeen kadib dagaal 2 maalmood socday. ugu yaraan 17 askari ayaa la sheegayaa in halkaasi ay ku dhinteen. dagaalkan ayaa waxa hareer socday weeraro kale oo kooxdu ay qaaday oo ay ka samaysay dhanka bari ee gobolkaasi. dagaal 5 maalmood socday magaalada Ghazni ayaa ciidamada dawladdu ay soo afjareen. boqolaal ayaa halka dhimasho iyo dhaawac oo ka soo gaaray. waxaana sawiradan oo laga helay ilo BBC-du ay ku kalsoon tahay goordhaweyd ay xaqiijinayaan in kooxda Taliban ay si furan u gaaf wareegayso dhinacyada magaalada Ghazni. afyeen u hadlay dawladda ayaana waxa uu sheegay in xaaladdu hadda caadi ay ku soo noqonayso. hay'adda bisha cas ee Afghanistan ayaa dirtay kolonyo gargaara oo daawooyin sida. dadka deegaanka inta badan waa ay ka qaxeen magaalada. wariyaha BBC-da qaybteeda Bashtuga Asadullah Jalalzai ayaa ka mid ah dadka qaxay. digniin muuqaalo naxdinla ayaa ku jira. saake mar aan booqday isbitaalka weyn ee magaalada ku yaalla waxaan arkay 10 dad meyd ah oo isdul saaran iyo sidoo kale dhaawacyo fara badan oo meel walba yaallay. dadka qaar ayaa meydka iyo dhaawaca ka dhex raadinaya bal inay ka helaan qaraabadooda
oo maqan oo aan lagu ogeyn meel ay ku dambeeyeen. goor kasta waxaad maqlaysaa oohin iyo sawaxan iyo qayle isdhex socda, taas oo ka dhigan in qof la aqoonsaday ama meydka dhexdiisa laga aqoonsaday ama dhaawaca qof laga helay oo ay qaraabadiisu heshay. magaaladan Khazani raashinku waa gabaabsi. haddii aad bahesho jab yar oo rooti ah, waxaad ku iibsanaysaa qiimo 6 jeer ka badan kii hore ee wax lagu kala iibsan jiray magaaladu xilligii ay caadiga ahayd. korontada gabi ahaanba waa ka maqan tahay magaalada. biyaha sidoo kale waa go'an yihiin. boqolaal ganacsi ayaa la gubay oo ay dadkii lahaa ku hanti beeleen. sidoo kale waxaa la gubay guryo, waxaa la gubay gawaari. xaaladda magaaladan waa cakiran tahay. waa xaaladda magaaladaasi Khazani ee dalka Afghanistan. dhanka kale waxaanu la hadalnay wariyaha BBC-da Shucayb Shariifi oo Kaabul ku sugan oo naga warramay sababta dagaaladan cusub. taalibaan markii horeba qaybo badan ayay gobolka gacanta ku hayeen. mar walba way u fududayd inay ku duulaan magaalada Khazani. magaaladu waxay iskoys u tahay gobollada koonfur iyo kuwa koonfur bari, waxayna u sahlaysaa inay ciidamadoodu u kala gudbaan. dabcan ma leh awood ay ku haystaan magaalo istaraatiijiya sida Khazani, laakiin waxay muujinayaan in awooddooda ciidan ay soo noqotay, isla markaana ay carqaladayn karaan nolosha dadka, halisna gelin karaan magaalooyinka waaweyn sida Khazani. weli waxaa noo soo socda oo aad ku daawan doontaan qaybta labaad ee barnaamijka. kumanaan qof oo reer Yemen ah ayaa ka qayb galay aaska wadareedka ah ee caruurtii ku dhintay duqeynta oo ay fuliyeen isbahaysiga Sacuudigu uu hogaaminayo. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka Caawiya Caalamka qaybta dambe ee weli nala jooga. weli waxaad daawanaysaa barnaamijka Caawiya Caalamka. waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale. balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. ciidamada Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay dhowraan xuquuqda rayidka xilliyada ay dagaalada ama hawlgallada ay ku jiraan. weli waxay noo soo socda gabar qurbaha ka tagtay oo ka shaqaysata Hargeysa oo shaqaalaheeda ku dhiirigelinaysa in ay wax bartaan. mas-uuliyiinta deegaanka gobolka Sacda ee Yemen ayaa sheegay in 51 qof oo ay ku jiraan 40 caruur ay ku dhinteen weerarkii duqeynta ee Khamiistii dhacay. waxaa stuudiyaha ila joogta Aisha Afrax oo warbixintaas noo haysa. Aisha, mahadsanid Farxaan. kumanaan qof oo reer Yemen ah ayaa ka soo qayb galay aaska caruurtii isbuucii hore Sacuudigu uu ku dilay. dadka dugta ka soo qayb galay ayaa kor u hayay sawirada caruurta oo ku celcelinayay oraahyo ay ku cambaareynayaan Sacuudiga iyo dawladaha reer galbeedka ah oo ay ka mid tahay dalka UK. waana tan warbixinta. waa meydad lagu sido naxasho kor loo qaaday. waa culays aan la xamili karin ee meydadka ugu fudud. wiilal yaryar oo lagu dilay gaarigii iskuulkooda. waana dhibanayaasha ay Sacuudigu ku hayso waxa ay u aragto duqeyn sharciyeysan oo ay ku beegsanayso dagaalyahanada Xuuthiyiinta. laakiin kaliya caruur ayaa halkan lagu aasayaa. xataa dadka reer Yemen oo dhibaatada iyo dhiigga qubanaya ay daashadeen ayay tani argagax galisay. jidadka magaaladan ay mucaaradku haystaan ee Sacda, dadka ku nool way murugaysan yihiin, waxayna u caraysan yihiin Sacuudiga iyo reer galbeedka la safan. hogaamiyaha mucaaradka Maxamed Al-Xuuthi ayaa yiri, ogow dunidu way aragtaa dulmigaaga, dambiyadana lama iloobi doono. laakiin xanaaqa ka taagan Yemen ma aysan ka qaylin dowladda Britain. aamusnaanteena ku aadan dhibaatada Yemen waxa ay ka dhigan tahay in isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay hogaaminayaan ay samayn karaan wixii ay doonaan eed la'aan. ilaa iyo hadda waxa keli ah oo aan dawladda Ingiriiska ka helnay waa fariin taageero u muujin oo ay Twitterka ku qoreen. fariin ka timi wasiir ka walaacsan dhimashada 29 caruur ah waxba kama dhigna. isbahaysigan uu Sacuudigu hogaaminayo ayaa ballan qaaday inay baari doonaan duqeynta loo geystay gaarigan iskuulka.
khubaraduse waxay sheegayaan inaysan filayn in baaritaankan uu isbeddel dhaliyo mana filayaan in london iyo washingtonba ay cadaadin doonaan riyaad wakhtigan xaadirka waynu ognahay in maraykanka iyo britanba ay leeyihiin awood yar markay noqoto cadaadis ay saaraan sacuudi arabiya waayo waxaan ognahay in dowladda riyaad ka talisa ay tahay dowlad runtii aad u cadhadhow wakhtigan islamarkaana waxaan ognahay xaaladda bariga dhexe oo dham inay tahay xaalad khatarteeda loo aan deganayn iyadana in maraykanka iyo markaad eegto britanba ay qandaraasyo waaweyn shirkadahoodu sacuudi arabiya ku leeyihiin laakiin dadka reer yemen sida sayid dayib waxaa khuseeya oo keliya in wiilashiisa ay dhinteen walaalihiina la dilay haddana la isku garab aasayo marka Caaisha hadda xaaladda waa sidee farxaan marka hore caruurtu waxay u socdeen xaflad qalin jabin ah way dabaaldegayeen waxayna u socdeen safar maalmeed taasoo isku bedeshay maalin mugdi ah waxaana ay ahayd duqeyn oo adduunyada oo idil ay ka argagaxday xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa hadeertaan ku dhawaaqay in la sameeyo baaritaan degdeg ah oona madax bannaan taasoo even ayada xataa maraykanka oo ka mid ah dowladaha aadka u hubeeyo sacuudiga isbahaysigiisa uu soo diri doono generaal oo ka qayb qaadan doono baaritaanka ugu dambeyn waxaa jira murano ku aadan hubka uu maraykanku uu ka iibinayo isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka aad iyo aad baan u mahadsantahay Caaisha Afrax oo warbixintaasi nooga hadlaysay sanad ayaa ka soo wareegtay markii uu dhul go' weyn uu ka dhacay dalka Sierra Leone waxaa masiibadaasi ku dhintay in ka badan 1,000 qof dadkan ayaa geeriyooday kadib markii ay buuro dhooba ay ku soo dumeen dadkii ka badbaaday ayaa wali dhibaatooyin ragaadiyeen markaasi Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa nooga waramaya weli waxay xusayaan dadkii ka dhintay dadkii laga tegay weli muruga ayay dareensan yihiin maaligii xaaskiisii 2 carruura iyo 10 ehelkiisa ayuu halkan ku waayay iminkana iyagii ayuu u ducaynayaa wiilkiisa 12 jirka ahi dirqi ayuu kaga samata baxay shilkaasi weli waxaa ka muuqda dhaawacyadii soo gaadhay sidani ma aha sidii aan ku dhashay halkan eeg lugta waa la i jaray waxaan rabay inaan mustaqbal yeesho iminka sidii ciyaalka kale uma ciyaari karo ma faraxsani laakiin waa inaan muujiyaa dhabar adayg waa goobtii masiibadu ka dhacday ee Sierra Leone dhismayaasha ayaa cagaf la geliyey iyadoo dhirtiina dib loo beerayo kumanaan ayaa halkan ku barakacay iminkana waxaa ku nool 200 oo qof in ka yar guryaha qaar ayaa dib loo dhisay iyadoon dawladdu waxba ku darsan laakiin kiro ayay dawladdu haddana ka rabtaa dhowr bilood un kadib markii lagu wareejiyey dadkan waxay bilaabeen guryahani in ay dildillaacaanba halkan wax biyo ah naguma soo gaaraan intii halkan nala keenay iskuullo ma jiraan cisbitaallo ma lahan meel suuq ah oo cuntada aanu ka gadanana ma jirto waa wax la fahmi karo inay haweenkani ka hadlayaan wixii dhacay sannadkii hore iyo dhibaatada hadda taagan laakiin waxay u muuqataa in mas-uuliyiintu aanay u haynin wax qorshe ah mabda ahaan markaad eegto xaaladooda waxaad odhan kartaa iyagaaba ladan waayo markaad isu eegto halkay ahaayeen iyo iminka xaalkoodu ma xuma aniga laftigayga ayaa tegay deegaankaasi dadkuna waxay ii sheegeen inaanay haysan adeegii dadweynaha dugsi ma jiro biyo ma jiraan cusbitaal ma jiro meeshaasi waa degmo cusub oo hadda la degay tartiib tartiib maalin qura rooma laguma dhisin waxaan rabnaa inaan horumarinno markaad eegto in dawladdu halkaasi dadka dejisay ayaaba wax ku ool ah daniel hamigiisu aad buu u weyn yahay waxaanu rabaa inuu noqdo injineer kombiyuutarka ah laakiin iminka waxa uu ku jiraa halgan nololeed xitaa markuu iskuulka qabanayana waxay ku tahay caqabad weyn xagga wararka ciyaaraha haddii aynu eegno isku aadka wareegga saddexaad ee Champions League ee Yurub ayaa la go'aansan doonaa goordhow tababarihii hore ee Liverpool Brendan Rodgers ayaa rajaynaya inuu hago kooxdiisa Celtic ciyaar ay marti u tahay kooxda AEK Athens waxay labadaba yihiin hal iyo hal kulankii toddobaadkii hore ee Glasgow Ajax iyo Benfica ayaa iyaguna caawa is arkaya horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa heshiis la galay Facebook heshiiskan ayay daawadayaasha dalka India si bilaash ah u daawan doonaan ciyaar kasta saddexda xilli ciyaareed ee soo socda
war ka soo baxay horyaalka La Liga ayaa lagu sheegay in dhammaan 380 ciyaar oo xilli ciyaareedkan oo cusub oo bilaabanaya Jimcaha ay diyaar u yihiin daawadayaasha. baaritaan ay BBC-da samaysay ayaa lagu ogaaday in kooxaha horyaalka Ingiriiska ay ku ciyaari karaan garoomo cidla ah welina ay lacag ka samayn karaan. waxaa arrintani keenay isbeddelka qaabka lacagta lagu sameeyo iyaga oo lacagta lagu bixiyo xuquuqda telefishinada ay sii kordhayso. heshiiskii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ku kacayaa 12 bilyan oo dollar. Roodo Cabdi Maxamed waxay ka mid tahay ganacsatada qurbaha ka tagay ee dalka ku laabtay. waxay shaqaalaheeda maqaayad ay leedahay ay ku siisaa fursad si ay wax u bartaan. anigoo ujeedka ganacsigay ka bixinaya haddana gaaray bay tiri in aan toodaan fuliyo. Roodo Cabdi oo ka sheekeynaysa ganacsigeeda sida uu ku bilowday. marka maasha Allah aniga iyo kaligay ma soo guurinay aniga hablahayga soo wada guurnay. waxaan soo guuray 2010kii markaanu nimid baa waxaan arkay waxyaabo badan inay u baahan tahay wadanka iyagu oo ah businesska ugu horeeyo hoteeladu. waxaan ka bilaabay maqsinkanaynu fadhinaan ka bilaabay meel yar qayb ah ta aniga xaggayga oo businesska ah iyo ta ah ubadka maanta wadanka jooga oo u batay inay dibadda u noqdaan oo dibadda u yaacaan oo waxaan la yiraahdo waxay ahaydee tahriib aan ka hor istaago. inamadii ila bilaabay maalintii aan fira ila jooga waxaan ku dadaalaa inaan waxbarashadooda kiciyo. inan walba oo ila shaqeeya waa arday maanta. waxaan cuntooyinka aan u badan waxa u wanaagsan oo u badan cuntada caruuraha dibadda ka yimaada jecel yihiin. cuntadeedu waxa weeye waa 24 hours. qof walba oo cuntada uu u baahan yahay hadduu hindi yahay tiisi baan u sameynaa, hadduu kenyaati yahay tiisi baan u sameynaa, caruurta dibadda toodi baan u sameynaa oo nooc walba leh, biinsadii leh, beegarkii leh. marka hore uma aan bislayn inaan makhaayad furo. business waan ahayo markaan joogay Ingiriiskaba business waan ahaa. se business hotel aad buu u dhib badan yahay. waxa weeye marka waxyaabo badan oo culus hadda se maasha Allah waa ka soo gudbay maadaama aniga shaqaalahaygiiba niyad wanaagsan aan wada hiigsanayno. aad baan ugu faraxsanahay maanta. noloshii adkayd markaan isu qiyaasa labada waxa adagta dibadda tan raaxo aadaan u arkaa. waayo waxaad haysataa dad kula shaqaynaya, dad ku caawinaya, ehelkii. marka shaqo isku ma laha labadooda. ugu dambeyntiina waxaanu idinkaga tegaynaa booliiska Florida ayaa waxay gacan aanay filayn ay ka heleen ayagoo doonaya in ay dambiile qabtaan kadib markii ay daba dhigteen baabuur la soo xaday oo booliisku ay bursanayeen. ayaa haweeneydii baabuurka waday ay isku dayday inay baxsato. lo'daasi kaamarada helikobtarta ay qabatay ayaa bursatay haweeneydii oo ku soo celisay xaggii booliisku ay ka xigeen. markii dambena iyagii ayaa qabtay oo xiray. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyay. si aad u hesho wararka caalamka ee Soomaalidaba waxaad nagala socon kartaa oo aad ka eegi kartaa bogayaga BBC Somali Twitter iyo waliba Instagram-ka. xasuusnow wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad kala socon kartaa bbcsomali.com/somali. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad mahadsantihiin daawadayaal. habeen wanaagsan.